maanta waxaan doonayaa in aan kula wadaago 5 eray oo halis badan oo ay dumarku adeegsadaan xilliga xanaaqa. Waa xog dhab ah. qalbi jilicsan iyo jir aan adkaysi lahayn intaba waxa loogu tagaa dumarka, balse marar badan ayay ragga ku qostaan inay fahmaan dareenka dumarka ee dhabta ah, taasoo daliil u ah inay adag tahay in la fahmo waxa ay dumarka doonayaan iyo waxa ay diidayaan, gaar ahaan xilliga labada lamaane ay isku xanaaqsan yihiin ama dirirta ay dhex taalo. haddaba si aad ugu badbaadid dhibaatooyinkan ballaaran oo haweeneydaada ka soo gaari kara, ka feejignow arrimahan aan hoos ku soo xusi doono ee haweenku ay ku kacaan xilliga xanaaqa. marar badan ayay dhacdaa in haweeneyda oo xanaaqsan marka aad wax weydiiso in ay kugu jawaabto hadal laga dhadhasan karo ogolaansho ama rabitaan, balse xaqiiqada dhabta ah ee ay ka damacsan tahay ayaa ah in ay diidan tahay arrinkaasi, taasoo ragga intiisa badani aysan ka warqabin dareenka qarsoon ee haweenku ku cabiraan xaaladooda. 6 kelmadood oo halis gooni ah leh, kuwaasoo dumarku ay si joogto ah u isticmaalaan kana turjumaan degnaan iyo ogolaansho, balse markii la guurgalay oo la soo baaray la ogaaday in ay ula jeedaan diidmo iyo xanaaq, taasoo arrinta ka dhigaysa mid khatarteeda leh, loona baahan yahay in ragga ka feejignaadaan. midda koowaad waxay tahay okay. ogow haddii xaaskaaga ama qofka aad xiriirka la leedahay oo xanaaqsani aad ka maqasho kelmadda okay ah, in ay qasab kugu tahay in aad aamusto, maxaa yeelay inta badan dumarku waxa ay kelmaddan u adeegsadaan in ay sheekada ku soo afjaraan, taasoo muujinaysa in aysan ku qanacsaneyn ama aysan cajimin hadalkaadu. marka okay ay ku dhahdo ulama jeedo in ay xaaladdu okay tahay, balse waa in aad joojisaa waxa aad ka hadlayso. 2 waxba ma jiraan. haddii aad kelmadda maqasho waa in aad maankaaga ku haysaa in xaaladdu ay qasan tahay oo ay jiraan dhibaatooyin rasmi ah oo ay kaaga tabanayso ama mid ayada gaar u ah, balse dumarka ayaa kelmaddan si joogto ah u adeegsada markuu maankooda uu ku gooxayo waxyaabo badan. midda saddexaad waxay tahay sidaa doontid samey. kelmaddan marnaba ma noqoto idin lagu siiyey ama in ay wax ku fasaxday, balse sida dhabta ah ee haweenku ula jeedaan ayaa ah in ay ku digayso oo weliba ay ku siinayso digniintii ugu cusleed, waxaana lagaa doonayaa inaadan waxba samayn. midda afraad waxay tahay maya mahadsanid. haddii kelmaddan ay haweeneydu adeegsato jawi aan ku habboonayn in la adeegsado, waxaad ogaataa in xanaaqa ay ku qabto uu gaarayo halkii ugu dambeeyey, waxaana lagaaga fadhiyaa in aad dejiso baddi aad kicisay weliba sida ugu dhaqsiyaha badan. midda shanaad waxa ay tahay aha. kelmaddan inta badan ragga waxay u qaataan in haweeneydu ay ogolaansho bixinayso, balse marnaba ulama jeedo ogolaansho ahaan, balse waxa ay aad ula yaaban tahay waxyaabaha aad ka sheekeynayso iyadoo weliba shaki weyn kaa qabta. haddii aad kelmadda maqasho, ku dadaal in aad jawiga bedesho oo aad hadallo jilicsan oo beerkeeda jilcinaya aad ku tiraahdo. fiiro gaar ah, haweenkoo dhan kama wada simna qodobada aan soo xusnay, balse haweenka ugu badan ayaa xanaaqooda kusoo gudbiya. waad ku mahadsantahay dhegeysigaaga. haddii aad ka heshay fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo usii sheergareynaya. haddii aad nagu cusub tahay si aysan kuu dhaafin muuqaaladana xiga, fadlan janalka subscribe dheh. waa bahda isku duuban Hilaac Studio oo idinla kalab wanaagsan. waad mahadsantiin dhammaantiinaba.